waqtigaas waxaan ahaa qof u nugul dhaawac walbo, waxaan ahaa qof u nugul wax walbo xaggiisa iga imaado. waxaan ka dareemay xagijiid iyo waqtiga uu ila qaadanayo inuu ka jecel yahay inuu iga tago oo kale. qisadani waa dhab, waxaana inala wadaagay gabar magaceeda inoogu soo koobtay Ilays oo ku nool dalka Sweden. waxay tiri waxaan jacayl ibedelay u qaaday wiil aynu iska baranay baraha bulshada ku xiriirta internetka xilli aan ku noolaa Soomaaliya, isaguna wuxuu ku sugnaa bay tiri dalka Sweden ee aan hadda deganahay. haddaba jacaylku waa dareen ka madax bannaan deegaan, midab iyo hantida uu qofku haysto. jacaylku kuma xirna masaafada uu qofku ku jiro ee kolba qofku sahansado buu sanka kaaga tolaya. jacaylku waa bilaa xuduud, waa dareen sida dabaysha oo kale ah oo waxa uu jiraa qalbiyada mucaashiqiinta. haddaba daawadayaal, intaanan gudagelin qisada jacayl ee Ilays, aan hal iyo laba ka xuso asxaabtii ugu saamaynta badneyd channelkeena YouTube-ka ee Aayaha Nolosha TV toddobaadkii tegay iyo fikradaha ay ka dhiibteen. inagoo markasta uga mahadcelinayna daawadayaasheena siday inoo soo dhaweeyeen, waana u riyaaqna runtii fariimaha hambalyada ah ee aad inoo soo diraysaan iyo qisooyinka jacayl ee aad inala wadaagaysaan. nimco togdheer oo la talinaysa Sayid Cali oo ah dhibana jacayl ayaa waxa ay tiri iska cafi walaal gabadha, iyadana maadaama ay ku xidhan tahay channelka Aayaha Nolosha TV waxaan leeyahay bay tiri ma jeclaan lahayd in walaalka ama waalidka sidaa loo xumeeyo. asxaab badan ayaa la talisay oo ay ka mid tahay Nagaad Saleebaan. waxay tiri waxaan ku leeyahay wiilka iska cafi, laakiin jacayl halkan ku ilow waayo laguma kalsoonaan karo gabadhaas. Sayid Cali oo ahaa wiilka ay qisadu ku dhacday oo isna dareenkiisa cabiraya ayaa waxa uu yiri waxaan u mahadcelinayaa Aayaha Nolosha TV oo igu dhiirigeliyay inaan banaanka soo dhiga xanuunkayga iyo bulshada aan ka helay buu yiri talooyinka fiican ee aan ku faa'iiday runtii. aan si ambaqaado qisadii jacayl ee Ilays waxay tiri waan ku faraxsanahay maanta in aan waayaheygii jacayl la wadaago bahda Aayaha Nolosha TV. runtii waxaad tihiin bay tiri wehelka dhabta ah ee bulshada. aan u sii daadago dulucda qormadeyda ee waxay tiri waxaan iska baranay wiilka xiriirka jacayl ina dhex maray aaladda Facebook-ga, waxaana ina dhex maray bay tiri xiriir kan ugu wanaagsan ee laba qofood oo isjecel dhex mara, ilaa heer bay tiri aan qalbigayga oo idil isaga u hibeeyay. waadna dareemi kartaa bay tiri culayska ay leedahay markii jacayl kuu galo qof kaa fog, laakiin anigu ma ahayn bay tiri qof ay culeysyadaasi niyad jebin karaan. mar walbana waxaan sal adag ka dhigan jiray bay tiri kalsoonida dhexdeena taalay, mana lahayn bay tiri awood aan ahayn isaga uun inaan sugo iyo rajo aan ahayn isaga uun inaan helo. waa tabintii shaacir. haddaba daawadayaal, si aad uga bogataan sheekooyin iyo qisooyin dhab ah oo quseeya waayaha nolosha, ku xirnaaw oo subscribe saar beejkan cusub ee Aayaha Nolosha TV. inala wadaag oo inoo soo dir maalmaha murugada iyo mahadada kugu beeray ee aan ka go'in xasuustaada adigoo fariin inoo soo diraya. qorshe kasta oo noloshayda aan lahaa wiilkaas ayaan ka hormariyay bay tiri maadaama jacaylkiisu uu indhatiray. wuxuu i baray bay tiri asxaabtiisa kuwii ku noolaa magaaladayda, gurigeenana xitaa kan ugu yar wuu yaqaanay bay tiri qofka aan jeclahay. waxay tiri wuxuu ahaa qofka ugu dambeeya ee aan ka fakira habeenkii, sidoo kale waxa ugu horeeya ee subaxii aan ka fakirana isaga ayuu ahaa. inka badan inta aan daryeelo nafteeda ayaan sharfi jiray bay tiri, waana tan iyadoo ka sheekeynaysa maalmihii wacnaa ee jacaylkeeda. waxaan aad ugu mahadcelinayaa bahda Aayaha Nolosha oo ah qabtiraha dhalinyarada. run ahaantii ma heli lahayn idinka haddiinan ahaan lahayn meelaan kusoo gudbino waayaheena xanuunka iyo murugada nagu reebay. magacaygu waa Ilays, waxaan ku noolahay dalka Sweden. intii aanan dalka Sweden imaanin waxay la soo diristay qiso jacayl taasoo ilaa hadda ka goyla niyadeeda iyo dhammaan waxay jirkeyga. wiilka wuxuu ku nool yahay dalka Sweden. run ahaantii wuxuu yahay wax walbo oo aan aniga hiigsanayo, mana jirin farxad kale oo aan rajeeyo ilaa isaga mooyaane. run ahaantii waxaan iska baranay aaladda Facebook. run ahaantii waqtigaas waxaa aad loo isticmaalaya baraha bulshada, waxaanan ka helay qofkaas Facebook-ka
wuxuu ii ahaa wax walbo. Wuxuu ii dareensiiyey jacayl kan ugu qiimaha badan ee laba qof oo bilaadan ay isdareensiiyaan. Waqtigaas wuxuu ahaa qof aad u wanaagsan. Wuxuu ahaa qof waqtigayga badan intiisa badan aan la qaybsado. Wuxuu ahaa qof Ilaahay dhammaystiray xag walba. Hal maalin oo aniga isoo martay niyadeyda ma gelinin. Maalin maalmaha ka mid ah ayaad kala fogaan doontiin. Waxaan wada soconay muddo 1 sano ah. Waxaan baray asxaabteyda, waalidkay, walaalahay, dhammaan bulshada igu hareeraysan. Kaloo xusid mudan, habeenkii marka aan seexanayna labadeena, lamaanaha qaar sida ay sameeyaan oo kale miinan samayn jirin. Waxaa aniga xasuus weyn igu reebtay waxay ahayd habeenkii marka aan seexanayo kale taleefankayga gacan kama damin jirin. Asagana sidoo kale waxaan seexan jiray asagoo qadka ku jiro oo aan dhageysanayo wax walbo ama dhawaq walbo xaggiisa iiga imaado. Waxay ahayd waqtiyo aanan niyadeyda ilaa hadda ka go'in. Waa sababta ilaa hadda igu dhalisay inaanan iloobin qofkaas. xiriirkeeni jacayl wuxuu sidaa ku socdaba oo hayga dhicin iyo hayga jibin aan ku jirnaba waxaa bilowda bay tiri duufaantii wadatay dabeysha kulul ee ina kala dhantaashay. isbedelo badan iyo dabeecado aanan ku aqoon ayaa ka soo daahiray bay tiri wiilkii ilaa heer uu dhumiyey kalsoonidaydii. qiyaas bay tiri marka adigoo faraxsan oo hadiyad u diyaarinaya qofka aad jeceshahay aad nabar xanuun badan kala kulantid ruuxii aad u dhiibi lahayd hadiyadaas. waatan Ilays. Wuxuu burburkayga bilowday habeen. Waxaa ii imaaday wiil ay asaga asxaabe yihiin. Waxaan u dhiibayay alaab ku socota xaggiisa. Waxaan si kadis ku qabtay taleefankii wiilka. Waxaan ku arkay sawir wiilkii aan jeclaa iyo gabar kale oo garbaha isku haya. Run ahaantii aad ayaan u niyad jabay. waan muraal dilaacay. Farxadii xilligaas i haysay iyo jawgii aan ku jiray ayaa bedelmay. wuxuu u bedelmay jawi murugo. waxaan go'aan ku gaaray wax walba aniga aan la socodsiin inaan burburiyo. laakiin haddii aad qof si dhab u jeceshahay waqtigaaga iyo waayahaaga aad la qaybsatay midaas way kugu adkaanaysaa. waan weydiiyey arrinta ku aadanayd sawirka. wuxuu i siiyey jawaab aanan ku qancin karin qalbigayga. jawaab aysan ku qanceynin ruux walba oo asaga u xanaaqday. run ahaantii waxaa dareemi karaa xaaladaas qofkii si dhawa wax u jecel ilaa haddana aan iloowin. intaas ugama harin. waxaan isku dayay xiriirkaas inaan wado wax walba ay igu qaadatay. waxaa ku qanacsanaa qalbigayga oo aanan u dulqaadan karin wax walba xaggiisa iga soo gaaray. waqtigaas waxaan ahaa qof u nugul dhaawac walbo. waxaan ahaa qof u nugul wax walba xaggiisa iga imaado. waxaan ka dareemay xagijiid iyo waqtiga uu ila qaadanayo inuu ka jecel yahay inuu iga tago oo kale. waxaan qaatay go'aan dhab ah oo ku aadan
inaan noloshiisa iskaga fogaado. ugu dambeyn wax kasta waan isku dayay bay tiri Ilays si aan qalbigayga uga saaro qofkaasi sidaa ii galay haddana waan haleeli waayay tani waa jacayl dhab ah waxaan idinka codsanayaa bay tiri asxaabta aayaha nolosha TV inaad